bini aadamna ma awoodo inuu dhabarkaaga uu fuulo inaad adiga dhabarkaaga u dhigtid maahane. Adiga ayay kaa falantaa inuu dhabarkaaga uu fuulo, adiga ayayna kaa falantaa inuusan fuulin. Qofka niyadda kaama dili karo inaad adiga u ogolaatid maahine, qofna qalbigaaga ma jebin karo inaad adiga fursad u siisid maahane. Haddaba dad waxaa jira iska dhigaya inay wax wanaagsan ay kuu sheegayaan, hase ahaatee si dadban ay niyadda kaaga dilayaan ama qalbiga ay kaaga dilayaan. Dadka noocaas oo kale ah markaad la kulantid marka maxaa laga rabaa inaad samaysid? Marka waxaa laga rabaa inaad samaysid inaad niyadaada ama nafsadaada ama qalbigaaga aadan u ogolaanin inuu qof bini aadan ah kaa jabiyo. Waayo dadku way hadlaan, qaar waxay ku hadlaan hadal wanaagsan oo waxtar ku leh, mustaqbal leh, yididiilo iyo horumar leh. qaarna iyagoo hadal wanaagsan ku hadlaaya ayaa haddana dhaawac ay ku geysanayaan, niyad jab iyo niyad dil iyo qalbi jab ku geysanayaan. Ha u ogolaanin markaas inay qalbigaaga ay jabiyaan, sababta oo ah ukunta marka banaanka laga dilaaciyo ama banaanka marka laga jabiyo wax walba way dhamaadaan. hase ahaatee ukunta gudaha marka laga soo jabiyo markaas ay nolol bilaabanaysaa. Adiga waxaa laga rabaa marka in qof bini aadam ah inaadan u ogolaanin inuu qalbigaaga suu doono uu ka yeesho, nafsadaada suu doono uu ka yeesho, niyadaada suu doono uu ka yeesho, isagoo markaas uga gol leeyahay inuu kaa dumiyo ama inuu kaa xumeeyo ama inuu kaa fasahaadiyo riyadaada iyo wax markaas adiga aad ku taamaysid. Qofna ma awoodo inuu dhabarkaaga fuulo inaad adiga u ogolaatid oo aad dhabarka u dhigtid maahane. Qofna qalbigaaga ma jabin karo inaad adiga fursad u siisid maahane. qalbigaaga waasici.